Okay, here we go. And how do you do to build consumer group through a promotion? Sidee baad u dhisaysaa ama sidee baad u bilaabaysaa inaad dhisto ganacsigaaga adigoo sameynaya xayeysiis? Sidee baad ganacsigaaga u bilaabaysaa adigoo abuuraya consumer group oo u maraya waxa loo yaqaan xayeysiinta? haddaba ganacsigan inaad bilowdo adigu waxa laga rabaa saddex shay inaad samayso ayaa laga doonaya. saddexdaas shay waxa ka inaad samayso purchase, alaabta inaad iibsato laga doonaya adiga. purchase ama three simple step waxa la yiraahdaa jira saddex shaqo fudud baa laga rabaa adigu inaad qabato. saddexdaas shaqo kow waxa ka purchase a product package only one time. waxaad alaabta iibsan shirkadda ayaad alaabka iibsanaysaa hal mar ayaad alaabka iibsanaysaa. sidoo kale waxaad furanaysaa customer business account aad leedahay baad samaysani oo ID card sawirka ku arkaysaan ID card baad samaysanaysaa. marka shirkaddan inaad bilowdo qodobka koobaad ee laga rabo waxa weeye inaad alaab iibsato iyo inaad samaysato account inaad samaysato. waa laba qodob israac. alaab baad iibsanaysaa, account waad furanaysaa ama ID card baad samaysanaysaa. qodobka labaad waxa weeye share to the inner circle. waxaad la wadaagaysaa information kood u sheegaysaa saaxiibada baad u sheegaysaa. waa true promotion gibi weeyaan, xayeysiintii weeyaan. waxaad u sheegaysaa asxaabtaada. waxaana isticmaalaysaa laba wado ah, physical iyo online baad samayn kartaa. physical hana qofkaad ku siin kartaa informationka, online hana waad isticmaali kartaa because online ka waxaad isticmaali kartaa chatting baad samayn kartaa ama calling baad samayn kartaa. waxaa laga rabaa kaliya inaad la wadaagto informationkan ama macluumaadkan 3 ilaa 5 qof baa laga rabaa inaad la wadaagto. taas waxay ka dhigan tahay haddii aad maalinta 30 daqiiqo waqtigaaga ku bixiso ganacsigan uu kugu filan yahay. qodobka saddexaad waxa weeyaan inaad samayso teach, inaad barto inner circle-ka dadkii aad keentay inaad bartaa laga rabaa information shirkadda inaad bartaa laga doonaya. waxaad ku bari kartaa office xafiis baad ku bari kartaa inaad geyso. sidoo kale waxaad ku bari kartaa online baad ku bari kartaa ganacsigan dadka. waxaad ku bari kartaa oo kale gurigaaga ayaad isticmaali kartaa. marka saddexda wado way ku furan tahay. therefore ganacsigan inaad bilowdo adigu waxa laga rabaa kaliya waa saddexda shaqo. kow waxaan waa iib inaad iibsato, laba waa inaad information ka sheegto, saddex waa inaad sii bartaa adigoo isticmaalaya office-ka ama online-ka ama home party-ga adigoo guriga isticmaalaya. saddexda wado waad ku gudbin kartaa ganacsigaaga.